بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أيام مهله oo ina kulansiiyay bishan barakaysan Ramadaan oo astaan u ah naxariista iyo cibaadada Ilaahay. Fadliga bishan iyo maalmahan xurmada badan waxaan ugu hambalyeynaa dhammaan muslimiinta caalamka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Bishan Ramadaan waa bishii khayrka waa bishii ay ku jirto habeenka khayrka badan ee Laylatul Qadriga waa bishii toobada cafiska shaydaankana la xiro muslimiintana naarta laga xoreeyo iyo khayr kale oo badan waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu fadligaas oo idil nagu manaysto nimcadiisa iyo naxariistiisana noo ziyaadiyo. walaalayaal xaaladda uu ku jiro caalamku gaar ahaan halista caafimaad ee dalkeena ku xeeran ee uu sababay cudurka COVID-19 waa mid aan yarayn oo nalooga baahan yahay dhammaanteen shacab iyo dowladba inaan ku baraarugsannahay oo aynu u istaagno sidii aan ula shaqayn lahayn laamaha caafimaadka uguna hoggaansami lahayn talooyinka iyo awaamiirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka bulshadeenna. alla waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo inta la xanuunsan cudurkan inta dhimatayna Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu siiyo naxariistiisii iyo jannadiisii. dadka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa bishan Ramadaan fadligeeda inay iscafiyaan oo ay kaalmeeyaan walaalahooda danyarta ah annagoo og inay jiraan walaalo badan oo Soomaaliyeed oo duruufaysan. qof walba oo awoodi kara inuu afuriyo ama uu quudiyo qoys Soomaaliyeed oo duruufaysan waa inuu Ilaahay ugu dhowaado kaalmadooda. sidoo kale waxaa muhiim ah inaan ka wada shaqayno danta guud ay ugu horeyso amniga kuwaas oo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta islaamka. ugu dambeyntii waxaan alla ka baryaynaa inuu naga aqbalo cibaadada wanaagsan amni iyo barwaaqana uu ka yeelo dadkeenna iyo dalkeenna. ramadaan kariim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.